xubno ka mid ah guddida xuska qaran ee 18 May ayaa saaka aroortii hore booqday xarunta ciidanka qaranka ee Birjeex oo ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland ay ku sameeyeen gaardiska ay u diyaar garoobayaan xuska 18 May maalinta qarannimada Soomaaliland. xubnahaasi guddida qabanqaabada maalinta qaran ee 18 May ayaa waxa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, wasiirka wasaaradda warfaafinta, wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland, wasiir dowlaha wasaaradda madaxtooyada, agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada iyo sidoo kale xogayaha golaha wasiirada Soomaaliland. waxaanay mas'uuliyiintaasi ay u korgaleen sida ay ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ay u diyaar garoobayaan maalintaasi qaran. waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Mudane Cali Maxamed Waran Cadde oo shacabka reer Soomaaliland ugu baaqay dibadba inay maalintaasi muujiyaan xuduudooda isla markaasina ay si weyn ugu soo baxaan maalinta qaran ee 18 May oo inagu soo foolle. anigoo ku hadlaya afka guddida qabanqaabada 18 May oo hareerahayga taagan hadday yihiin wasiirada, hadday yihiin janaraalada ciidamada qalabka sida kala duwan. waxaan runtii halkan ilaahay mahadi ah baroobadii u dambeysay tii ku xigtay ayaanu maanta halkan ku eegnay annagoo indhayndeynayna sida ay muxuu ahaayey ciidamadu ugu diyaar garoobeen qalabka sida dabaaldega maalinta 18 May. waxaan halkan runtii aan uga soo jeedinayaa mahadnaq iyo bogaadin madaxda ciidanka qaranka, booliiska, asluubta, badda, immigrationka oo runtii muujiyey karti iyo hufnaan iyo dhammaan ciidamadii ka qayb galay baroobadii saaka. waxaan leenahay guul iyo gobonnimo oo halkaasoo loogala sii dhowaadaa. talabaad waxaanu jeclahay maanta inaanu halkan uga baaqno bulshada reer Soomaaliland dhammaan hadday dabadda joogto iyo hadday gudaha joogto. waxaananu ku boorinaynaa kow maalinta 18 May ee 25 guurada ay ka soo wareegtay maalintii aynu xorriyaddeena la soo noqonnay. waa maalin weyn, waa maalin aynu rubcu qarni marayno. waxaa loo baahan yahay caalamka inaynu indhahooda tusno waddadii dheerayd iyo achievementkii faraha badnaa iyo bisaylkii ummadda reer Soomaaliland iyo xukuumaddeedu ay u soo bislaadeen inay maanta ka mid noqon karaan caalamka xorta ah iyo international community-ga. inaynu caalamka tusno in nin walbo reer Soomaaliland halkiisa ka guntado. dadka dabadaha ee reer Soomaaliland waa sufaro weeye. nin waliba halkiisuu safiir ka yahay, nin waliba dalka uu joogo iyo ummadda uu la dhaqmayo ee uu la nool yahay. waxa maanta loo baahan yahay inay codkooda gaarsiiyaan iyaga oo tagi doona ama ka hor samayn doona isu imaadiyo xafiisyada dawladaha dalalka ay ku nool yihiin si ay u tusaan una dhiibaan warqadaha dalabka aqoonsiga Soomaaliland oo runtii maanta in badan dhaaftay dawlado badan oo Afrikaan ah iyo kuwa badan oo Aasiyaati ah. hadday tahay xagga nabadgelyada, hadday tahay xagga horumarka, hadday tahay xagga dawlad wanaagga, hadday tahay bisaylka bulshada reer Soomaaliland oo runtii maanta qiimo weyn ama adduunyada ay ku majeeranayso sidii muxuu ahaayey bulshada reer Soomaaliland iyo dawladooda iyo shacabka dadaalay ee aan cid caawinin ay maanta u noqon lahaayeen dal ka mid ah dunida. marka taasuna gacanteena ay ku jirtaa. waa Xasan Maxamed Muuse iyo Cawil Cabdi Kahin, telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Hargeysa.